Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo caawa kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxa ay madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday Farmaajo ku eedeeyeen in uu ka dambeeyay isla markaana uu mas'uul ka yahay dagaalkii xalay ilaa iyo saakay ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxayna dhalinyaradan marka hore ka tacsiyadeeyeen dadkii ku dhintay dagaalkii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee u dhaxeeyay ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo ilaalada midowga musharaxiinta mucaaradka ah, iyagoo sheegeen in uu si cad arrinkaasi uga dambeeyay madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida ay sheegeen. halkan waxaan baaq uga dirayaa madaxweynihii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee waqtigiisii dhammaaday si sharci darro ahna ku jooga filada Soomaaliya annagoo ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. waxa xalay toolaan oo aragnay waxaan laga sheekeyn karin lana oran kareynin ninka dawlad sheeganaya nin kale waxbaan dhisaya ayaa xalay toolo wuxuu sameeyay isagoo dawlad ka socday in dadkii masaakiinta ahaa uu dhibaato u geysto. waxa ayaan daro ah dadkii u soo baxay banaanbaxa in la rusheeyo, waxa ayaan daro ah dadkii u joogay inay amnigooda la sugo aan dhibaato u ahaaneyn isagu mas'uuliyad iska saaray inuu isaga dadku rusheeyo. ilaa xalay waxaan u joognaa xabada aan laga sheekeyn karin ilaa aan ku cararnay jilbahayeeda ilaa saaka waxaan taagan u cararayna quribaan la daba cararaya xaq u malihi anigoo muwaadin Soomaaliyeed ah oo nabad u soo baxay nabadna ku socda in la rusheeyo oo meel kasta oo laygu istaajiyo xabad iyo dhibaato ina xaq u malihi. waxaan halkan ka leeyahay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa tusaale cad ku ah sidii madaxweynaashii hore ay xilka ay sida sharafta leh gobonimada la ay u wareejiyeen adiguna gudnimo aad ka doorbiday oo xabad iyo dhibaato iyo balaayo aad raadinayso. taas waa ayaan dar halka waxaan taasuuga dirayaa dadkii dhibaatada loo geystay ha noqoto askartii ha noqoto dadkii shicibka ah waxaan leeyahay inna la wana ilaahi raajicuun intii dhimatay Allah u naxariisto intii nool caafimaad sareeco. waxaad mudan in lagu daydo madaxweynayaashii hore ee dalka ku sugan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Sheekh Shariif dadkaas mudan haddii aad rabto afkaar iyo fikir iyo ra'yi ku hadashana dadka ku dayo. waxaan aad uga xumahay gaangistarnimada aad la joogto dadka deegaanka odayaasha dhaqanka bulshada qaybaheeda kala duwan mutacalimiinta culimada qof walba waxa laga rabaa inuu soo istaago cadeeyo waxa uu iyo sida uu arko madaxweynaha jamhuuriyadda ee waqtigiisu dhammaaday wax xukun maraqsiga uu hayo. waxaan marka halkan rabnaa inaan ku tilmaano ama aan ka tilmaano fariinteena ay ku saleysan tahay in mudaharaadka maalinta biri ah iyo maalmaha soo socda iyo asbuuca soo socda iyo inta Farmaajo meesha ka soo baxayo inaan wadno. qof walba oo muwaadin oo magaalada Muqdisho ku nool waxaan leenahay walaal soo bax waxaad u soo baxdaa ugu horeyn xorriyadaada u soo bax waxa u soo baxdaa nabad in magaalada Muqdisho lagu wada noolaado dimuqraadiyadda u soo bax kaligiis talis inaad ka hor imaato sharafay ku tahay. dad badan waxa jira aaminsan ama isdhahay maanta dhib kuma haysto laakiin waxa xaqiiq ah dhibka maanta jira biriyo intaan ka sii weynaan karaa. marka waxaan rabaa qof walba oo muwaadin ah oo Soomaaliyeed inuu ka qayb qaato revolutionka ama kacdoonka socda ee lagu doonayo xaqqa iyo dimuqraadiyadda iyo cadaaladda. madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan uga digaynaa qalalaasaha iyo siyaasad xumada iyo xukun jacaylka uu ku taamayo ama uu ku dhagan yahay inuu isagana aan u fiicnayn ummadda Soomaaliyeedna aan u wanaagsanayn ee maalinkii la doortay u soo banaan baxday calaamaanta iyo guryahooda iyo goobihii ay ku jireen uga soo yaacay ciidanku xabada u rideen. midda horta waxaan ka tacsiyadeynaa dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay 24 saacadood midnimada uu burburkeeda ka shaqeynayo iyo dawlad la'aantana madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne aqligu ha ku soo noqdo. dadka Soomaaliyeed ee shalay toole waxaan ku yiri adigoo ka yimid Mareykanku doortayna waxaan leenahay madaxweyne ka xishood aqliga u soo noqo waqtigaaga waa dhamaaday madaxweyne hore tahay filada ka soo bax doorashada dalka waxaan ku yiri soo dhaxdhigo halagaala shaqeeyo waan leenahay. abaan hadraawi wuxuu yiri ilaahay maxay tahay caafimaad taam ha siiye wuxuu yiri hadba geedismaris baa u baxa guulin leeyahay miyaan geedi baabow gali arladu galina waayeen maalintii kasta ee waxaan ku yiri ama sanadkii kasta ama 10kii kasta Soomaalidu miyaan waayeen qof dictator ah oo xukun jecel oo raba inuu kaligii wixii umad lahayd ay wada marorsado. fariin suugaanaysan baa halka madaxweynaha uga diraya dictatorshipnimada iyo kaligiis talisnimadu waxay soo bilaabatay markii Cabdiraxmaan Cabdishakuur gurigiisa lagu weeraray. waxay soo bilaabatay markii maamul goboleedada qofkii la doono sidii la doono dadka loogu soo xirxiray wixii la doono lagu sameeyay. waxay soo bilaabantay waxa soo ficili markay dhacayeen hadda maaha wax cusub. dadka reer Muqdisho waxa ugu baaqaya inaanay baqan inay isku duubnaadaan in ay taageeraan dimuqraadiyadda iyo dawladnimo soo celinta
ay wadaan midowga musharaxiinta iyo siyaasiyiinta kale ee Soomaaliyeed ee doonaya dalkani inuu dal dimuqraadi ah noqdo dalkani inuu ka soo kabto dhibtii laga soo gaaray 30 sano ee aynu soo dhaafnay iyo 20 sano ee ka horeysay ee ay ciidankii iyo taliska ciidanku talinayeen ee Soomaaliya kala fogaatay kala tagtay ayna noqotay koox haddii maanta aynu u dulqaadano in ciidankii loogu talagalay in cadowga inaga difaacaan ay inaga laynagu soo jahayo taas waxay keenaysaa in intii yareed la yaabay 10 sano u dambeysay ay iyana meesha ka baxdo. Cabdikariim Cali Aadan, warbaahinta Goobjoog, magaalada Muqdisho.